senator Ayuub Ismaaciil Yuusuf oo kamid ah senatarada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa loo wadaa xilka gudoomiyaha golaha aqalka sare. Mas'uuliyiin ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya ayaa u xaqiijiyay Samawada TV in madaxweyne Farmaajo uu aqbalay in senator Ayuub Ismaaciil oo ah wiil dhalinyaro ah laga dhigo gudoomiyaha aqalka sare. Xogta uu helay Samawada TV ayaa sheegaysa in uu soo gabagaboobay kulamo ay lahaayeen madaxda sare ee dowladda oo ay go'aan kaga gaarayeen shakhsiga lagu bedelayo Cabdi Xaashi oo hadda khilaaf xoogan uu kala dhaxeeyo madaxda dowladda federaalka. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre iyo agaasimaha hay'adda NISA Fahad Yaasiin ayaa madaxweyne Farmaajo u soo jeediyay in fursad la siiyo senator Ayuub Ismaaciil oo ay aaminsan yihiin in doorashada soo socota wax badan ka caawin karo xisbiga Nabad iyo Nolol. Wararka qaar ayaa sheegaya in senator Ayuub Ismaaciil uu aqbalay inuu qabto xilka gudoomiyaha golaha aqalka sare. Waxaa lagu ballamay sida ay xogta ku heshay Samawada TV in kulan toos ah uu dhexmaro madaxweyne Farmaajo, ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre, ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar iyo agaasime Fahad Yaasiin iyo senator Ayuub Ismaaciil si qorshahan uu u guuleysto. Senatarka ayaa hadda xubin firfircoon ka ah xisbiga dowladda ee dhawaan lagu dhawaaqi doono. Waxaa xusid mudan in uu ku jiray 15 qof ee loo xilsaaray ka shaqeynta aasaaska xisbigan. Senator Ayuub Ismaaciil Yuusuf ayaa ka soo jeeda gobolka Awdal ee gobolada Waqooyi Galbeed.